السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا أن جعلهاي وأن إذن سلامي سلام كتب أخيارتا أن جعلهاي maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago cashir yar oo ku saabsan PHP qaybtii waxaa noo socoto xalqadii ahayd oo ku saabsaneed PHP and MySQL. maanta waxaan isleeyahay waxaan rabaa in aan input output sameeyo. input outputka aan sameynayno waxaan ku sameyn doonaa qaybta hadda aan marayno ama chapterka koowaad ayaan ku sameyn doonaa input output. chapterka labaad markaan gaarno waxaan sameyn doonaa advanced input output oo ku saabsan program yar oo ku saabsan sida google-ka xogta loo geliyo. google markaad xog gelisaa waxaad arki doontaa xog aad gelisay inay kasoo muuqato meesha. xogtaas meesha kasoo muuqanaysana inay tahay xog jirta oo ku jirta programkaaga. so intaan kaas ka sameynayno waxaan fahmi doonaa horta sida input basic ahaan u fahmi doonaa qaabka loo geliyo xog kadibna loo soo muujiyo xogta la geliyey. so hadhowna waxaan fahmi doonaa insha allah chapterka labaad waxaan ku qaadan doonaa input output oo advance ah oo ku saabsan qaabka uu u shaqeeyo google program yar oo google camalaan sameyn doonaa insha allah. so cashirka haddaad fahanto kaas kuguma adkaan doono insha allah. aan isla bilaawna marka hore cashirkeena meeshaan uu ka bilaaban doonaa. waxaan furi doonaa folderaha ay igu jiraan xogta ama PHP testing ku jiro. sidoo kale waxaan kaloo furi doonaa meeshaan chromekeyga caadiga ah. sidoo kale waxaan kaloo furan doonaa programka aan wax ku qori doono qoran doono. okay, markaan saan u furo programka markuu saan usoo kaco waxaan folder kusoo furi doonaa folder nameka aan u baahanahay ayaan soo furi doonaa. folder nameka aan u baahanahay waa test1 or test waa say la tahay maya test1 uu ahaa test1 aan ku dhufan doonaa kadibna selective folder aan leeyahay. kan iga saar marka meesha. okay, kanna yareey sidoo kale kan ka saar meesha okay, kan aan u baahanahay keliya kanna soo yareey. okay, meesha marka waxaan ku qori doonaa programkii hore suu u shaqeynayaan fiirin doonaa oo ku laaban doonaa. programka hore wuxuu ahaa test1 folder test1 aan ku jirnaa. test1 aan dhahno enter dheh. okay, folder test1 saan uu ahaa programka wuxuu ahaa laba tiro la isku daraayo. hadda waxaan sameyn doonaa marka tirooyinka la isku daraayo inaan input ahaan u sameeyo. dhowr input aan sameyn doonaa, dhowr outputna waa arki doonaa. so first horta programka intaanan bilaabin inputka waxaa loogu baahan yahay in lagu diyaariyo HTML cause form ma lahan PHP oo input lagu sameeyo, laakiin inputka waxa la geliyaa waxaa lagu soo muujin doonaa output oo PHP ah. so sidaa darteed waxaan u baahannahay marka aan baranayno PHP sidaan hore u sheegay inaan wax ka naqaano wax loo yaqaano HTML basically because HTML haddaadan garanaynin PHP way kugu adkaan doontaa sida inputka outputka loo sameeyo. okay, marka waxaan sameyn doonaa marka HTML aan qori doonaa. HTML5 aan isticmaalaynaa hadda waqtigan la taagan yahay. okay, HTML5 markaa rabtid inaad qortid programkan wuxuu kuu sahlaa oo la dhahayo visual codeka wuxuu kuu sahlaa tusaale ahaan markaad rabtid HTML inaad qorto program HTML ah caadi waxaad qoranaysaa tag HTML nooca u baahan tahay noocu uu yahay aad qoranaysaa. tusaale ahaan hadda fiiri HTML aniga marka waxaan isticmaalaa HTML5 kaasaan ku dhufan doonaa. XML haddaa rabtid XML-ka ku dhufanaysa, laakiin aniga hadda waxaan ka isticmaali doonaa HTML5 versionka la dhahayo. so markaa meeshaan joogo waxaan rabaa marka HTML-kan inaan ciwaan u sameeyo. hadda document aa ku qoran markaan refresh dhaho programka meesha waxaa kusoo qormayso document ma u baahni. marka waxaan ka dhigi rabaa waxa uu yahay programkayga wuxuu noqon doonaa input output in la sameeyo. programkayga wuxuu noqon doonaa input output in la sameeyo. so refresh markaan dhaho meeshan oo refresh dhaho meesha waxaa kusoo qorantay input output. so si aan programka input ugu sameeyo waxaan u baahanahay form oo lagu xareeyo programka inputkiisa iyo formkaas la xareeyay meel laga soo muujiyo yani programkaas loogu soo muujiyo in la helaa. so si aan u helaa waxaan u baahanahay inaan horta form basic aan sameeyo. formkaas aan sameynayo wuxuu noqon doonaa formka aan u baahanahay in wax xogta aan geliyo. so formka markii xog la gelinayo dhowr qaabaa la isticmaalaa. formka dhowr qaabaa loo isticmaalaa in post lagu sameeyo markaad wax gelinayso. formka markaa wax kasoo qaadaysana waxaa la isticmaalaa get.
so required jiro waa badan yihiin laakiin hadda waxaan ka bilaabi doonaa inaan isticmaalno boost si aan xog u gelino. So waxaan leenahay form boost methodka aan isticmaalayno. Method waa qaabka loo isticmaalayo. Formkan qaabkiisa muxuu noqon doonaa? Formkan qaabkiisa wuxuu noqon doonaa inaan dhahno boost. Okay, formka meel uu aadaa actionka uu qabanayo waxaan ka dhigi doonaa actionka uu qabanayo ama meesha uu aadayo, yacni linkiga meesha uu aadayo. Programka waxaa noogu qoran index.php waxaan ka dhigi doonaa daartid empty ka dhigi kartaa, daartidna caadi sidiisa ku daan kartaa, laakiin aniga waxaan ka dhigaa index.php. So formka markaan saas u xiro aan furo hoostiisa waxaan ku qori doonaa marka inputka meesha wax la gelinayo. Tusaale ahaan hadda markaan refresh dhaho it means wax ma arkaysid, yacni meeshaan wax ma yaalo. Si aan meel text box wax la geliyo aan u sameeyo waxaan isticmaali doonaa input. waxaan leeyahay inputka typekiisa wuxuu noqon doonaa yacni type nuuca inputka noociisa wuxuu noqon doonaa in name la geliyo. Name waxaan ku bilaabi doonaa inaan magac gelino, number oo usoo laaban doonaa, so name in la geliyo. Sidoo kale okay, si name markaan dhahno nameka meesha waxaa jiro waxa la lahayo xog placeholder meel xogta hayso, yacni kasoo muuqan kara. tusaalaan meeshaan geli waxaas iyo waxaas si loo soo muujiyo waxaa isticmaalaysa wax loo yaqaano placeholder. placeholderkaygu wuxuu la mid noqon doonaa isna magac. waxaan ku qori doonaa halkan geli magac, halkan geli magac. markaan sis dhaho waa soo xiri doonaa inputkayga, kadibna waxaan leeyahay save. Okay, meeshaan aan fiirina refresh aan dahna fiiri refresh. meeshaan waxaa ku qoran halkan geli magac laakiin ku baabaa, it means placeholder la meeshaan wuxuu ku caddeynaa in xog la gelin karo. sidoo kale waxaan u baahanahay another thing oo ah waxaa kasii maqan meeshaan maadaama type aan haysto name uu yahay, waxaa ka maqan meel laga soo akriyo datada name la dhahayo oo laga soo akriyo markii la rabo in la isfahansiiyo PHP-ga iyo HTML-ka. waxaan u baahanahay meel name ay ku qoran tahay. namekaas oo u noqon doono markaan rabo inaan soo import gareeyo boostiga, markaan rabo inaan soo import gareeyo textigiisa, markaan rabo inaan kusoo import gareeyo insert HTML-ka iyo PHP-ga markaan isku import gareena waxaa u baahanahay wax loo yaqaano name. namekaas waxaan ku qori doonaa meesha waxaa loogu talagalay magacaan ku qoran doonaa. tusaale ahaan magacaan leeyahay, waxaan halkan ka wada waa fahmi doontiin insha allah. magacaan ku qornaa, so waxaa ku xigo wax loo yaqaano inaan isticmaalno another inputkaas oo noqon doono isheeg wuxuu noqon doonaa inputkan wuxuu noqon doonaa typekiisa button ama submit button oo noqon doona. waxaan leenahay typekiisa ka dhig, typekiisa waxaan ka dhigaynaa submit, it means waa button. markaan dhahno placeholder muu leeyahay waa may, laakiin wuxuu la yeelan doonaa magacaasoo lagu garan doono hadhow markii la rabo in lasbaro HTML-ka iyo PHP-ga. so namekan aan wax kasoo qaadayo xogta waxaan ka dhigi doonaa marka btn ama button aan usoo gaabsaday, kadibna waa xiri doonaa. kadibna okay, waxaa kasii maqan meesha value. tusaalehaan hadda daan refresh dhaho wuxuu qaadan doonaa submit, yacni magacaan uu qaadan doonaa, laakiin defaultii magacaas uu qaadan doonaa. laakiin haddaan value siiyo, qiimo aan siiyo magacaas oo aan dhahayo tusaale ahaan output, tusaale ahaan output markaan dhaho oo aan save dhaho control s aan dhaho oo refresh aan dhaho, value uu qaato wuxuu noqon doonaa out. so aan ka dhigno output maadaama xog aan gelinayno output aan ka dhigaynaa. markaan output dhahno refresh aan leenahay. okay, meeshaan hadda xoogaa ku jirto intana output uu leeyahay. so hadda aan bilaawno marka PHP codeka. haddaartid PHP codeka inta ku bilaabi karta, haddaartid banaankiisa ka dhigi karta, laakiin inta ku fiican intaan ka bilaabana. PHP-ga sida loo qoro waa soo aragnay. waxaan leenahay PHP for PHP xir. marka xogtaan markii output la dhaho waxaa la rabaa calaa tool inuu aado isheeg. okay, kan waa ka saari karnaa indexkan anaga condition ku xirayno, haddii kale anaga wax qorin oo iska aadaa calaa tool inuu meeshaas aado. so meesha waan ka saaraynaa. waxaan leenahay marka condition ku xirayna program. waxaan leenahay haddii buttonkan haddii la taabto oo set noqdo, yacni xogta buttonkan lagu taabto soo geli. so waxaan leenahay conditionka if haddii is set, yacni if is set haddii buttonka la dhahayo $sign
post buttonkan la dhahayo btn namekan aan kasoo qaadanaynaa la soco meeshaan postigii la gelinayo waa namekan maxaa noogu qoran btn noogu qoran meesha waxaa ku qoran btn haddii buttonkaas btn click la siiyo if it's set haddii buttonkan click la siiyo means maxaa dhacayo okay inta maahan inta ka dhig baasha buttonkan haddii oo click la siiyo maxaa dhacayo waxaa ka horeeya marka if it is empty waa ka horeyso haddii uu meeshaan ay tahay empty in la dhahaa condition kale ku xidheynaa markii buttonka click la siiyo inuu dhaho horto soo buuxi meesha banaan okay if it's waxaan leenahay if haddii empty uu yahay maxaa empty noqonayo bracket for maxaa empty noqonayo $sign post okay postigan waxaa laga rabaa mar walbo saan inuu calaamadan weynta ahaado $sign post $sign post hadduu postigaaga yani empty uu ahaado maxaa empty noqonayo meesha maxaa noogu qoran magaca waxaan ku qoranay namekan fiiri waxaan ku qoranay magac hadduu magacaan empty yahay yani wuxuu ku dhihi doonaa conditionkan wuxuu ku dhihi doonaa buuxi hadduunan ever ahayn waxaa lasoo muujin doonaa xogta nameka ku dhex jirta ama xogta ku jirta magaca so waxaan leenahay if it is empty hadduu magac tusaale ahaan magac isku qaab inay u qormaana la rabaa haddii kale qalada dhacayo if it is empty hadduu magacaan empty yahay condition kale kusii xiran conditionkaas oo noqon doona hadduu empty yahay in lasoo bandhigo eco in lagu soo bandhigo eco waxaa lagu soo bandhigaa buuxi meelaha banaan buuxi meelaha banaan okay markaasas dhahayd semicolon kusoo xir okay aan fiirina marka programka refresh leh tusaale ahaan haddaan hadda output dhaho meesha maxaa kugu soo qormay buuxi meelaha banaan meesha waxaa kusoo qormay buuxi meelaha banaan so si aan meeshaan ugu soo qormin buuxi meelaha banaan waxaad u baahan tahay inaad meeshaan wax ku qorto tusaalean haddaan wax ku qoro means wax mala soo bandhigaya laakiin buuxi meelaha banaan way ka baxaysaa okay hadda waxaan fahnay in aan qornay if is set and post btn kadibna aan soo geliya waxaan dhahnay conditionka haddii buttonka aan riixno buttonkan haddaan click siino conditionka nagey hadduu meesha conditionka empty yahay waxaa la dhihi doonaa buuxi meelaha banaan else inta ka dhacee marka waxa la gelinayo else intaan ku sameynayna tusaale ahaan markaan meeshan xog geliyo meeshaan markaan geliyo waxaan u baahanahay xogtaan inta geliyey inay inta kasoo baxdo so si aan saas usoo muujiyo horta waxaan qabsan doonaa variable oo magac la dhahayo variable magacaan la dhahayo wuxuu ii haan doonaa waxa magac la soo geliyo magac qofka userka markuu meesha wax soo geliyo waxay ku dhici doonaan magac kadibna output markii lasoo sameeyo magacan waxa ku jira intay kusoo shubmi doonaan so waxaan dhihi doonaa magacaasi aan u leekeysiiyo postiga wax lasoo geliyo waxaan dhihi doonaa $sign post maxaa waaye waxa lasoo gelinaya magac tusaale ahaan iyo shaqal yar uu ahaa shaqal yar ka dhig tusaale ahaan meeshaan fiiri haddii meeshaan magacaan variablekan magac lasoo geliyo tusaale ahaan magac yani inputka markii lasoo geliyo magac wax aan soo geliyo wuxuu ku shubmi doonaa variablekan la dhahayo magac kadibna waxaa soo muuqan doona magacaan wax lasoo geliyey intay ku shubmi doonaan kadibna output waxaan ka samayn doonaa waxa inta lagu shubay so si aan saas u sameyno kan noo soo xir hoosaan u degi doonaa tusaalehaan hadda waa programka saanuu noqday waxaan leeyahay $sign magacaan marka waxaan rabaa inaan soo bandhigo si aan usoo bandhigo waxaan leeyahay eco wax kale ma sameynaya ecogeyga ama waxa aan soo bandhigayo waxay la mid noqon doonaan wax loo yaqaano variableka la dhahayo magac wax kale ma sameynaya salaan leh waa programkan khalaas waaye tusaale haddii meesha ay banaanta waxaa lagu dhihi doonaa buuxi meelaha banaan yani variableka haddii inta meeshaan wax la gelinin buuxi meelaha banaan haddii kale meesha ay banaaneen oo xog la geliyo oo output la dhaho waxaa soo bixi doona waxa qofka uu inta ku qoray oo aan waxaan sameynay magacan qabsanay variable la dhahayo yani wuxuu leeyahay aan dhaanay qofka wuxuu uu soo geliyo marka kadib waxaa lasoo saari doonaa qofka wuxuu uu soo geliyey variableka qabtay aa lasoo saari doonaa soo tusaale ahaan refresh day marka hadda waa save gareynay continue leh okay hadda horaa wujida refresh day programka hore uu haastaa kii hore uu haastaa okay and then refresh okay hadda fiir waxaan qori doonaa marka tusaale ahaan I am student ama waxaan qori doonaa waxaan ahay arday waxaan
ahay arday. markaan qoro xogta meeshaan ku qoro waxaan ahay arday, waxaa loo baahan yahay inay kusoo qaranto halkan. kadib waxaan leeyahay output. waa ujeedaa meeshaan waxaa lagu soo qoray waxaan ahay arday. waxaan sameeyey hadda output, waxaan ku helay waxaan sameeyey input, kadibna waxaan helay output. so inputka aan sameeyey maxaan ku sameeyey waa kan. meesha laga sameynayo inputka halkan uu ka bilaaban doonaa input. okay, inputka waa kan. tusaale ahaan input qor. inputka waa kan. inputka waa kaas. outputkan intuu noqon doonaa, outputkan wuxuu noqon doonaa php da. outputkan wuxuu noqon doonaa, waxaan qori doonaa output, isna wuxuu noqon doonaa halkan savegareesna waa kaas. waxaan sameynay input iyo output. outputka waa kan, meesha oo xogta lagu soo bandhigaya halaanay qaadatay. maadaama aan space baxay si aan u fududeeno baasha, waa isku dhaweynaynaa si loo fahmo u noqonin wax badan programka. waa kan programka dhan waa alaas. xogta aragtid aa gashan kartaa, xogta aragtid aa gashan kartaa programka. magac name nooca aragtid, xog waxa aragtid aa geli kartaa. waa kan programka dhan waa halaan. halaan waa php da oo output ka sameynaysay, halaan waa input wax sameynayay oo ah formkii ama html formkii ahaa. so tusaale ahaan hadda aan refresh aan dhahno refresh aan ka saarno tusaale ahaan. okay, refresh leh. okay, marka meesha markaa joogtid tusaale ahaan hadda waxaan ahay arday, xog ma gelinaya. tusaale ahaan output aan dhahay, maxaa soo baxay meelaha banaan buuxi. tusaale ahaan hadda waxaan dhahay tusaale ahaan cumar, magacaan geliyey, kadibna waxaan dhahay output. meesha maxaa kusoo qormay waxaan halkan geliyey. marka cashirkan waxaa ku fahmaysaa labo shay: in output la sameeyey, in input la sameeyey, xog la geliyey, kadibna output la sameeyey. so cashirkeena insha allah halaanu ku ekaan doonaa. intaan cashirkan cashir lamida kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.